Lula Jamema oo ah gabar qurux badan oo aqoon-yahanad ah da'deeduna ay tahay 22 jir isla markaana ah ardayad xariifad ah oo dhigata jaamacadda Oxford ayaa waxay xafladii guurkeeda si la yaab badan ugu dabaaldegtay gudaha dalkeeda. Gabadhan ayaa ka daashay codsi joogto ah oo ay qoyskeeda si xiriir ah u soo gaarsiinayeen, kaasoo ah in si degdeg ah ay ku guursato. Waxay cadaadiska si gaar ah ugala kulmaysay hooyadeed iyo aabaheed oo aad u doonayay in gabadhooda si dhaqso ah ay u guursato una samayso qoys iyo caruur badan. Haddaba si indhaha ay iskaga leexiso, waxa ay dhigatay xaflad ballaaran, waxayna soo xiratay dharkii arooska. Saaxiibadeedna waxay isugu yeertay halkii ay xafladdu ka dhacaysay si ay ugu dhawaaqdo dadka hortooda inay goosatay in ay nafteeda guursatay. Lula waxay ka soo jeedaa dalka dhaca qaarada Afrika ee Uganda, oo dhaqanka ka jira uu yahay marka ay gabadhu ay 30 sano gaarto oo aanay guursan in walwal ay ku abuurtay xubnaha kala duwan ee qoyskeeda. Sidaa darteed, qoyska Lula waxay aad dhibaato ugu qabeen doobnimada gabadhooda oo muddo dheer aan guursan. Laakiin gabadha ayaa hadaf leh oo doonaysa inay noqoto macallimad jaamacadeed mustaqbalka. Lula ayaa ka faa'iideysatay sanad guuradii dhalashada, waxaana xalfadeeda guurka ay ku qasabtay hotel ku yaala magaalada Kampala. Guurkan ayaa noqday mid la yaab badan oo soo jiitay saxaafadda maxalliga ah iyo midka caalamiga ahba.